Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, good evening. Assalamu alaikum. Lovely to see you all here tonight. mahadsanid mudane madaxweyne habeen wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum muslimiintahay waana ku faraxsanahay inaan caawa halkan idinku arko hadalkaygana aan ku bilaabo aniga oo ah muslim anigoo islaamka metelaya waxaan iska soo qaadayaa inaan ahay safiir islaamku soo dirsaday aaminsanna islaamka raacsanna islaamka iyo nabigiisa anoo awoodaas oo dhan marka hore sita aan marka hore ka raali geliyo Annie Mary qaraxidii bambooyinka ee baali ka dhacay waxaana ka raali gelinayaa doorkii diinteeda iyo dadkaygu arintaas ku lahaayeen iyo dilkii ninkii la oran jiray Van Gogh Theo iyo qaraxii 77ba waxaasoo dhan iyo wax walba oo nu geysanay runtii u fiirso hadalkaan jirna waxa aan ka wadaa runtii waxa arin la yaabo ah in waxaasoo dhan in hadda aan kor ku soo sheegay inay ahaayeen eedeymihii ay ku andacoonaysay waxayna lahayd dhibkaas oo dhan waxa geystay islaamka quraanka iyo muslimiinta حتى بلو فيرسو هذا الكا أي تري رئيس الوزراء UK أنا ميدك تفوق أنا رئيس الوزراء ميدك تفوق أياب صبح لها أو أوران لها أركتيها نوعا هي وهذا لنا عيب waxaana aaminsanahay inaad inay adigu xisbiga shaqaalaha ka tirsan tahay adigoo marka ka tirsan xisbigaas haddana hadaad hadallada noocan oo kala ah aad ku hadasho waxaan dabcan aaminsanahay in xisbiga laga saari lahaa haddana waa soo bixi lahayd iyaguna marka way ka laba saari lahaayeen waana isla meereysan lahaydeen They might have something to say about your views. What Mehdi Hasan always does. By the way, just on a factual point. sidoo kale haddaan arrin kale oo xaqiiqa aan ka hadlo qofkii labaad ee hadlayayna waad arkayseen isna wuxuu ka waramayay uu lahaa sida muslimiintu u dib dhacsan yihiin adigana inay waxa tiri islaamka waxa dhalay Sacuudi Carabiya laakiin islaamku wuxuu dhashay 610 miilaadiga Sacuudi Carabiyana waxa la aasaasay 1932 marka 1322 sano oo kaliya ba taariikhda ka dambaysa ma xumo Soomaha. Not bad start there. Talking of maths, by the way. midda kale haddaan xisaabta ka hadlo waa koo ninkii hore ee hadlayay uu lahaa muslimiintu waa dib u dhacay nin la oran jiray al-Khawaarzimi kaasoo ahaa xisaabyahanadii ugu waaweynaa ee taariikhda soo maray ahaana nin muslim ah shaqaynayayna casrigii dahabiga ahaa ee islaamka wuxuu ahaa khabiirkii soo saaray algorithm la'aantiina laptop maanta maadan haysateen laptop la'aantiina Daniel Johnson oo muslimiinta liidayay waraaqaha uu wax ka akhrinayo maanta muusan soo daabacdeen manuusan maanta ku taameen in reer galbeedku maskax ahaan iyo horumar ahaanba dhaafeen muslimiinta waxa soo hormara ee ku andacoonayna waxa uu sabab ahaa kristankii iyo yahuudi reer Yurubka ahaan jiray taariikhyahankii Daniel David ahaana wuxuu qoray Yurub isbedel horumarineed kama dhaceen haddii aysan door weyn ka ciyaari lahayn raggii la kala oran jiray Ibn Sina Ibn Rushd iyo rag kale fara badan oo muslimiina oo isugu jiray culimo filosoofaro iyo saynisahanaba. Some of the great Muslim theologians, philosophers, scientists in bringing Greek text to Europe. sidoo kale hadalkii kale lagu andacoonayay ee ahaa jaamacadeena hadalkaana dabcan waxaan u dhaafayaa cidda laga wado ee annaga iyo iyaga loo kala qaadayo ilaan aniguba jaamacadan waan leeyahay waana dhigtaaye hadalladii halkan laga lahaana aad baan uga yaabay caawa waayo waxaa la sheegayay hadallo iyo xaqiiqooyin la soo wada jarjaray oo wada kala dhiman intii la rabo oo kaliyana la soo daliishanayo si khaldan oo maran habaabin ahna loo sheegayo si khaldanna wax loo fasiranayo sidoo kale Daniel wuxuu soo qaatay article aan horay u qoray oo kaga hadlayay yahuud nacaybka ka jira wadamada qaar oo dabcan xaqiiqa laakiin dabcan ma oranin islaamka ayaa sababay nacaybkaas laakiin nacaybka bariga dhexe ka jira waxa sababay weyn wada naqaana waana kristankii reer Yurubka ahaa kuwaasoo halka Israa'iil ku beeray xataa Tom Friedman oo ah yahuudiyaan Amerikaan ahi wuxuu halkan aynu caawa joogno iigu sheegay inuu aaminsan yahay haddii Yurub 1940 oo islaamku ka talin lahaa inay maanta noolaan lahaayeen 6 milyan oo dheeraada oo yahuud ah sidaa darteed anigu cashar ka qaadan maayo waxna ka dhageysan maayo qof kristan ah oo raba inuu difaaco sharafta qaarad uu ku nool yahay oo hore u dishay 6 milyan oo yahuuda
runta u fiirsa hadalkan dambe ee Mahdi Xasan waa laga xumaaday sababtoo ah u fiirsa wuxuu yiri codkiisana waan sii deyn doonaa wuxuu yiri anigu cashar ka qaadan maayo waxna ka dhageysan maayo qof Kristaan ah oo raba inuu difaaco sharafta qaaradda uu ku nool yahay oo hore u dishay 6 milyan oo Yahuuda markaas inta la yaabay ayaa markaas walba la weydiiyay waxa lagu yiri oo hadda Mahdi oo miyir baad wax ka sheegaysaa baa lagu yiri bal codkiisa aan sii daayinta Tom Friedman, Jewish American columnist in the New York Times, told me in this very chamber last week that he believed, had Muslims been running Europe in the 1940s, 6 million extra Jews would still be alive today. So I'm not going to take lessons in anti-Semitism from someone who's here to defend the Judeo-Christian values of a continent that murdered 6 million Jews. Moving swiftly on. Yes. Absolutely. Well, I'm about to make that point. No, I'm about to make that point. You're right. I agree with you. I agree with you 110%. qodobkaas waan u soo socdaa waana ku waafaqsanahay 110% umana malaynayo inay Yurub ahaanteeda u xun tahay aniguna waan ku faanayaa inaan ahay Yurubiyaanimadana wax kuma xukmiyo laakiin haddaad ciyaartan xun idinku ciyaartaan oo bambooyinka iyo Yahuud nacaybka aad islaamka u tiirsaan anna tusaalahaas oo kale ayaan soo qaadanayaa bal xataa u fiirso Daniel daqiiqadihiisii u dambeeyay wuxuu bedelay Douglas Murray dabcan aniga Douglas Murrayna afkaaro badan ayaan ku kala duwanahay haddana saasay tahay Douglas Murray iyo ani oo hore u hadashayba bal u fiirso waa mulxidiintuna diimaho dhan waxay u arkaan inay xun yihiin qalalaase badan yihiin gacanka hadalka uu yaqaanaan sidaa darteed hadalkii Daniel eedeynta aan u soo jeedinayaa waxa weeye Daniel halkan waxa uu u yimid inuu kristaannimada uu difaaco iyaga oo haddana dadka kristaanka ah ee uu difaacaya ay yihiin isla dadkii haddaan muslimiin nahay na geliyay dagaaladii Crusaderska ama xuruubu saliibiya xasuuqa ba'ana waqtiga noo geystay jirdilkii Isbaanishka ama Andalusiana geystay sidoo kale abuuray ajantayaasha Yahuud nacaybka ah kumaysiga Yurubiyaanka ee ku wajahna Afrika iyo Aasiya abuuray ciidamada istifaaca ee Ugandana sameeyay iyo weeraro badan iyo qaraxyo badan oo Ameerika ka dhacayna geystay iyo waxyaabo kale oo la sheegi karin bal u fiirso waxaas oo dhan cid geysatay waxay ahaayeen dadoo Kristana ay ahaayeen marka Daniel fadlan isku xisho inta aadan muslimiinta ku eedeynin argagax gelin gacanka hadal iyo dulqaad la'aan on violence, terror and intolerance. But, no thank you. Take some water. But I would say this. waxa aan leeyahay Danielow ciyaartaada oo kale anu ma ciyaaro umana arko in diinta Kristaanku ay tahay diin gacanka hadal iyo nacayb sida anoo ka xukun qaadanaya waxa LRA ay Uganda ka sameynayso ama wixii Crusadersku ay ku sameeyeen muslimiintii iyo Yahuudi Qudus taganaan jirtay waxaan aaminsanahay in Kristaannimadu sida Islaamka oo kale ku dhisan tahay iimaan iyo isjeclaanshiyo bulshooyinka ka dhaxeeya aniguna waxaan raacsanahay diin Qur'aankeedu ka kooban yahay 114 suuradood oo 113 suuradood oo kamid ah ay ku bilaamayaan magaca Rabbi iyo Ilaah naxariis badan diinteeduna ima barto Ilaah dagaalka ilaaha cadada ilaaha nacaybka iyo cadaalad darrada waa sida diimaha qaar sheegtaane sida uu aadan sheegayna hadaad quraanka akhrido waxaad ku arkaysaa naxariis jacayl iyo cadaalad dabcan isla quraankana waxa ku jira aayado dagaalka ka waramaya waana sax waayo islaamku ma aha diin aaminsan in sinaba aan dagaal loo gali karin islaamkuna dagaalka wuxuu ogolaadaa oo uu fasaxaa waqtiyada loo baahdo waana qaba in dabcan koox yar oo muslimiinta kamid ah inay aayadahaas ay khalad fahmeen arinta kale iga yaabisayna waxa weeye caawa waxaan ka hadlaynaa diinta islaamka mucaaradka iyaga naga soo horjeedaana waxay kale yihiin mid taariikhda casriga ah ka qalinjabiyay iyo kuwa kale oo markaa chemistry-ga ka baxay laakiin anigoo cilmigooda tixgelinaya haddana saasay tahay kuma jiro hal qof oo khibrad islaamka u leh ama caalim islaamka yaqaana ah ama taariikhyahan islaamka bartay ah ama qof carabiga xataa yaqaano oo ku hadla amaba xataa haba ugu yaraatee xataa qof argagixisada iyo amniga ku takhasusay haddana saasay tahay intaasoo dhan midnaba iyaga oona aan ahayn ayaa haddana waxa ay yimaadeen halkan iyaga oo soo tuurtuuraya afkaaro bal aan idin dhageysiiyo Professor Robert Babe oo jaamacadaha Mareykanka wax ka dhiga ahna khabiir ku takhasusay argagixisada kaasoon dabcan ahayn kooxdan hor fadhida caawa
baarayna dhacdo walba oo argagixiso ku lug leh soo saarayna markaa cilmi baadhis uu ka sameeyey intii u dhaxaysay 1980 ilaa 2005 yidhina waqtigaas waxaa dhacay 315 kiis wuxuuna ku soo gabagabeeyey aanbal hadalkiisa aan idin akhriyo waxaa jira xidhiidh aad u yar oo u dhaxeeya ismiidaaminta argagixisada ah iyo asal raacnimada islaamka ama asal raacnimada diimaha kale laakiin waxa dhammaan ismiidaaminta argagixisada ahi ka wada siman yihiin waa mabda' gooni ah oo kooxi leedahay iyo hadaf ay rabto inay gaadho oo isugu jira dimuqraadiyadda inay meesha ka saaraan ama xoog militari inay meel ku qabsadaan arrintaasoo ka dhacda goobta argagixisadu aaminsan tahay inay tahay dhulkoodii sidaa darteed arrinta khayaaliga ahi waxa weeye markaynu argagixisada ka hadlayno kooxdan caawa naga soo horjeeda ee ay hor fadhida iyo argagixisada muslimiinta ah sida alqaacido iyo kuwa lamidka ahi waxaa jira wax ay ka siman yihiin waana labadooduba waxay aaminsan yihiin in islaamku yahay diin dagaal iyo gacanka hadal uun ku dhisan bal ka waran kuwan caawa hor fadhiya iyo Usaama bin Laden xagga afkaaraha waa iskaga mid waxbana kuma kala duwana waayo isku aragti ay islaamka ka qabaan The problem is dhibaataduna waxa weeye aragtida ay islaamka ka qabaan labadoodu waa alqaacido iyo kooxdan hor fadhidee waa aragti aysan ku waafaqsaneyn muslimiinta kale oo dhani arrintaana tusaale waxaan u soo qaadan karaa ninkii Galab la oran jiray waxa uu sameeyey cilmi baadhistii ugu ballaarnayd oo uu ku sameeyey 50 kun oo qof oo muslimiina kuwaasoo ka soo kala jeeda 35 wadan oo kala duwan dadkaasina markii aftida laga qaaday 93% waxa ay markaa ay sheegeen inaysan gabi ahaanba ku waafaqsaneyn alqaacida wixii ay qarxii 9/11 ay ka sameeyeen 7% ku waafaqayna waxay ugu waafaqeen arrimo siyaasadeed darteed marna maysan ugu waafaqin arrimo diimeed sidoo kale haddaad u baahan tahay culimada islaamku iyo waxa ay arrintan ka qabaan waxaad wareysataa Danielow waadigii lahaa jaamacadeena ee jaamacadda ICCA waxaanu tagi doonaa qaybta shariicada islaamka lagu barto ee jaamacadeena ku taale halka waxaad kula kulmi doontaa Sheekh Cafiifi Al-Akiidi ahna caalim si weyn loo qadariyo daafaha caalamkana wax ku soo bartay kaasoo fatwo ka soo saaray maalintii qaraxu dhacay canbaareeyayna argagixisada magaca islaamka ku shaqaysanaysa isqarxinta bamaysanna ku tilmaamay inay tahay arrin aanan islaamka sal iyo raad ku lahayn sidoo kale waxaad dhegaysataa oo akhridaa Sheekh Daahirul Qaadiri oo kamid ah culimada Pakistan ugu caansan kaasoo soo saaray fatwo 600 beeja kuna eedeynayay dilka ismiidaaminta ah ee dadka aan waxba galabsan loo geysanayo arrimahaas oo dhanna waxay muujinayaan afkaarta ay qabaan muslimiinta intooda badani iyo waliba culimadoodu inaysan ku waafaqsaneyn arrimaha dadka xaq jirinta ah mana qabno qofku intuu iskii isaga soo baxo uu dil ka geysan karayo wadooyinka iyo baska dhexdiisa iyo moolasha isagoo markaa iska adeegsanaya ayado uu Quraanka ka soo goostay ayadahaas oonan xataa loo fiirin mawduuca ay ka hadlayaan iyo sida culimadu u fasirtay in badan oo anaga naga mid ahina gabi ahaanba waanu ka soo horjeedsanaa dadka argagixisada ah laakiin inayoo kale intay hadda iska soo istaagto ay halkan timaado ayay iska oranaysaa kitaabka xeerka shareecada mana jiro kitaab magaciisa la dhaho kitaabka xeerka shareecada dadkuna waxay hadi jeer iskaga murmaan xeerka shareecada of Sharia law. I would like to see the book of Sharia law. It doesn't exist. People argue over what Sharia law is. And you empower the extremists by saying there is only one version. idinka awoodda leh xaq jirinta ahina waxaad leedihiin waxa jira hal qaab oo kaliya oo islaamka loo fasirto qaabkaasina waa qaabka argagixisadu u fasiratay annaguna waxaanu leenahay diin 14 qarni hadda aasaasnayd oo dunidan ka jirtay raacsan yihiin in ka badan 2 bilyan oo qof dadkaas oo daafaha caalamka ku kala nool lehna dhaqamo iyo jinsiyado kala duwan kooxda naga soo horjeedana dadkaas oo dhan waxay rabaan inay ku camimaan faham iyo aragti aysan gabi ahaanba qabin si ay doodan ugu guuleystaan sidoo kale lacala haddaan dhahno qaraxii shalay muslim ayaa ka dambeeyey inkastoonan weli la cadeynin cidda ka dambeysay haddana bal haddaan iskaga waafaqno oo aan dhahno san muranka uga baxno muslim baa ka dambeeyey iyo sidoo kale qaraxyada guud dunida ka dhacay oo dhan kuwaasoo lagu tilmaamay ilaa 16 inay yihiin dhammaantood muslim baa ka dambeeyey haddaan lacala aan ka soo qaadno oon dhahno islaamkuna diin nabadeed ma aha su'aashu waxa weeye muslimiinta yada kale maxaanu qabanaynay
waa maxayse sababta koox aad u yar oo naga mid ahi ay diinta ugu fasiranayaan qaabka iyo nidaamka isla kooxdan mucaaradka ah ee naga soo horjeeda ay u fasirteen oo kale haddii markaa la dhaho 16,000 dhammaantood muslim baa ka dambeeyey waxay ka dhigan tahay boqolkiiba eber hal oo muslimiinta ka mid ah unbaa qaabka wuxu fahma bal waxaad isweydiisaa markaa aaway boqolkiiba 99.999 kale ee muslimiinta ay fahamkoodii aaway kooxda naga soo horjeeda ee mucaaradka ahina waxay caawa ina leeyihiin oo rabaan inay inoo sheegaan boqolkiiba 99 kale ee muslimiinta ka mid ah ee islaamka sidaa nabdoon u fahmay dhammaantood way wada khalad fahmeen waxaa saxa uun boqolkiiba eber halkaas unbaa islaamka qaabka u fahmeen ay saxan yihiin bay rabaan inay maanta inaga dhaadhiciyaan xaqiiqaduse waxaa weeye intayada kale isma qarxino laakiin kooxda naga soo horjeeda waxay u malaynayaan inaan aniga iyo aadam isqarxinayno ilaan diin dagaal ayaanu aaminsannahay diintaasoo doonaysa inay la wareegto Yurub iyo Daniel jaamacadiisa which wants to take over Europe and Daniel's university. The issue is this. arrintuna waxa weeye haddii aysan mucaaradkayagani aysan caawa noo sheegi karaynin sababta muslimiintu intooda ugu badani aysan u ahayn dad qalalaase badan laakiin kaliya koox yar oo kooban oo arrimo kale wata u qaadanayaan fahamkooda una odhanayaan kuwa unbu fahamkoodu saxan yahay waa inaysan mar dambe odhanin arrimahaasoo dhan islaamka iyo muslimiinta ayaa ka dambeeya marwo iyo mudanayaalba bal arrintan ka fikira haddaad caawa maya u codaysaan waxay ka dhigan tahay dadka diintan raacsan oo ay kamid yihiin aniga xaaskayga waalidkayga howlgabka ah ilmahayga 6 jirka ah iyo 2 bilyan oo qof oo muslimiin oo daafaha caalamka ku kala nool kuwaasoo markaa dhammaantood aaminsan raacsan oo ku faanaya diintan ayaa dhammaantood waxay ku faanaan diin qalalaase wadata masaasay idinla tahay bal fikira masaasaad u malaynaysaan arrinta aad caawa u codaynaysaana waxaa sugaya 2 qolo oo kala ah balaayiin qof oo nabadda jecel oo kala jooga UK, Yurub, Asia, Yurub, America iyo intaas wixii ka baxsan kuwaasoo islaamka u arka hubiyadooda iyo dhalashadoodii iyo qolo kale oo nacayb hormaray oo ay hor fadhiya kuwaasoo doonaya inay ina kala qaybiyaan oo inoo kala qaybiyaan iyaga annaga keena kooda waxaana idin leeyahay ha dhageysanina kala qaybinta ay inagu wadaan kooxdani waxaadna ku kalsoonaataan qof kasta oo muslim ah oo taqaanaan oo jaar tihiin ku kalsoonaada kuwaasoon qalalaasaha aaminsanayn jecel inaad maqashaan farinta islaamku uu sido ee nabdoon islaamka oo ah diin naxariis iyo nabadeedna u aaminsan inay tahay diintoodii islaamkuna ma aha waxa ay alqaacido sameynayso waxaana idinku boorinayaa inaad caawa aad haa u codaysaan wadna mahadsantihiin sidoo kale daawade ma ogtahay in website-ka iyo mobile app-ka Jawhar Online Academy aad iska bari karto maadooyinka secondary schoolska laga bilaabo form 1 ilaa form 4 aad iska bari karto haddana ay kugu diyaar yihiin mathematics-ka form 1 ilaa form 4 oo lagaga shaqeynayo dhammaan exercise-yada iyo example-lada qaab waliba aad iyo aad u tayeysan kursinka markaad iibsatana xataa hadduu khadku ka xun yahay inta aad download garaysato ayaad qaab offline aad ku daawan kartaa casharada sidoo kale appka Jawhar Online Academy waxaad ka helaysaa manhaj luqadda Ingiriiska ah oo dhameystiran manhajkaas oo adigu luqadda Ingiriiska aad iska bari karto dadkii aad la baratskareyn lahaydna waan ku xidhinaa isla manhajkaas oo ah dabcan aniga idin la hadlaya manhajkii aan soo bartay ee luqadda Ingiriiska aan ka soo dhigtay ugu dambeyntii wixii macluumaad dheeraad ah waxaad geli kartaa website-ka Jawhar Online Academy ama mobile app-ka Jawhar Online Academy ama sidoo kale website-ka iyo Telegram-ka nambarka xaggan idinka muuqda ayaad la xiriiri kartaa dhammaantiina khayr baan idin rajaynayaa